munaasabad balaaran oo lagu xusayay 8 Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadaas oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyay xeer ilaaliyaha qaranka dalka iyo sidoo kale marwada madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa si diiran waxa loogu dabaaldegay 8 Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka oo ku beegneed maalintii shalay ahayd. Warkan waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Cabdullaahi Axmed Nuur. haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sanad ka sameeyay dabaaldegyo waaweyn oo ka duwan kuwii hore waxaana xubnihii xalay ka hadlay munaasabada ay ka mideysnaayeen in haweenka ay kaalin mug leh ka qaateen nabadda iyo horumarka dalka. wa rahmatullaahi wa barakaatuh. dhamaan waxaan salaamayaa haweenka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyo meel walba ay ku nool yihiin waxaan leeyahay hambaliyo aan sanad guurada 8 Maarso farxadda annagoo joogno Soomaaliya Muqdisho ayaan idin kula qaadanaynaa qalbiga iyo niyadaba meel alla meesha joogtiin. cawo taariikhiya waxa ka tilmaaman awooyinkii aan u dabaaldegi jirnay 8 Maarso waxa iftiin weyn inoo shiday hoggaanka wanaagsan ee wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Sahro oo markii ay xilka qabatay dhammaan isugu yeertay ururada haweenka iyadoo waqtigu uu ciriiri yahayna naga codsatay in haweenka Soomaaliyeed aysan u baahnayn tafaraaruq iska horjeed iyo isjiijid iyo isqabqabsi in Soomaaliya dib u dhac weyn uu ku dhacay loona baahan yahay si midnimo ah ay gabdhaha Soomaaliyeed u istaagaan wada shaqaynta iyo horumarka dalka si aan u gaarno meesha aan dib uga dhacnay aan uga horumarno. waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dumarka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibaddaba. caawa xafladan waxaan isugu nimid inaan xusno 8 Maarso laakiin ma kala tagayno oo halkan shaqadeena nooguma dhawaanayso. waa baab cusub oo aan bilawnay waa baab cusub oo aan leenahay annagu hana la arko inaan codkeena la maqli waayo yeeli mayna mar dambe. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanku waxay u taagan tahay inay dhowrtaa xaqa ummadda Soomaaliyeed siiba tan dumarka. wasaaraddu waxay u taagan tahay inay dhowrtaa horumarinta dumarka. ugu dambeyn waxaa munaasabada hadal ka jeediyay marwada madaxweynaha Soomaaliya waxaana ay sidoo kale abaalmarino kala duwan guddoonsiisay shakhsiyaad ka mid ah haweenka kuwaasi oo wax qabad wanaagsan muujiyay. waxaan ka codsanayaa xukuumadda in wax laga bedelo in wax laga qabto caafimaadka hooyada iyo dhallaanka maadaama ay yihiin kuwa ugu jilicsan bulshada. waxaan ku faraxsanahay wasiiradda caafimaadka in horteeda fadhido mas'uuliyaddaas ayadaan saaraya maasha Allah ayadaan saaraya mas'uuliyaddaas. waxaan rabaa in aan u mahad celiyo haweenka ka kala yimid gobollada dalka oo ka soo qayb galay xafladan aadka u quruxda badan. waxaan u mahad celinayaa gabdhihii qabanqaabiye xafladan. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.